dabeetana fayakshifu الxijaab fama ucطuu شhayئa axaba ilayhim min الnadri ilىa rabbihim caزa wajal ilaahay baa istusiya wax ka qurux badan rabbigoodu ay arkeen oo kaleba ma jirto dabeetana nebigu wuxuu ku fasiray liladiina axsanuu اlxusna waziyaada inay ziyaadada tahy kuwa gaaleedna dee ilaahay qur-aanku ku tilmaamay inay rabbigood arkaynin kalaa bal raana calىa quluubihim ma kaanuu yagsibuun kalaa inahum can rabbihim yowmaئidi lamaxjuubuun ilaahay waa laga xijaabaya kuwaasi ma arkayaan baa ilaahay leeyihi kuwii rabbi ka gaaloobay ee dunuubta waaweyn galay uma inahum lasaalu ljaxiim baa rabbi ku tilmaamaya idan shayga koowaad ixsaanku waa inaynu garanno inaad ilaahay arkayso markaad cibaadaadka samaynayso taasi waxay kugu beeraysaa alla ka cabsi iyo ilaahay aad weynayso subxaanahu wa tacaala iyo cibaadada oo aad si fiican u samayso cibaado kastoo aad samaynayso oo aad si fiican oo dhammaystiran oo salaadda markaad tukanayso aanaad ka digdigsiina arkaanteedi iyo waxeedii oo dhan aad si wanaagsan ula timaado martabada labaad ee ixsaanku bay idhaahaan waa martabaة الxayaaءi min allah waa martabo uu qofku gaadho inuu rabbigii ka xishoodo waa martabo uu qofku rumaysay iyo cibaadadoo qura maaha markuu ku jire noloshiisoo dhan inuu rumaysay inuu ilaahay arkayo fayastaxyi الcabdu min khaaliqih an yajidahu xayثu nahaa aw yafqida xayثa amara dabeetana qofka muslimka ahi waxa uu ka xishoonaya inuu ilaahay ku arko wuxuu ka reebay wuxuu ka xishoonayaa inuu samayn waayo ilaahay arko wax la faray isagoo samayn waaye oo haddaad wax kasta iskaga dhacdo waxay yidhahdaan culamaaء suluuk ilaahay baa waxaad ka dhigtay ahwanu الnaadiriina ilayk inta ku arkaysa ka u liita tusaale dadku hadday ku arkayaan ma laga yaabaa inaad hortooda zina ku samayso maxaad samaynaysaa dhuumaad is leedahay soo maaho meel aan lagaa garanaynin ciidaan ku garanaynin dadkan waad ku dhex ceeboobaysaaye cid aan ku garanayn agteeda ku samee hadduu waalidkaa ku arkayo xuma ma samaynaysaa mise waad is ururinaysaa iyo waad xishoonaysaa haddiiba ay caynkaa tahay inta ku arkaysa yuu ilaahay kuula liidanin markaa qofka mu'minka ee dhabta ahi meel kastaba ha joogo markii hore alixsaan fi lcibaada baynu ka warramayna markan waxa weeyaan qofka mu'minka ahi meel kastaba ha jooga wuxuu rumaysay in rabbigii taalacanayo dabeetana wuxuu ka xishoonayaa in alle ku arko wuxuu ka reebay wuxuu ka xishoonayaa wax ilaahay faray inuu ka gaabiyo ilaahay baa qur-aanka isagoo munaafiqiin ama dad aan fiicnayn ka warramaya wuxuu leeyahy yastakfuuna min annaas dadkay ka qarsanayaan baa ilaahay yidhi walaa yastakfuuna min allah ilaahayse ka qarsan maayaan markay xadhig mareegayaan ama xumo samaynayaan oo caynkan bini aadamka waa iska qarinayaan baa ilaahay leeyahy walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum ilaahayse kama xishoonayaan isagoo alle macooda oo og id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waa marka ay habeenkii ku hadlayaan baa ilaahay leeyahy ku habeensanayaan wax aanu ilaahay raalli ka ahayn war ah wa kaana allahu bima yacmaluuna muxiiطa ilaahayna subxaanaه wa tacaala waxay samaynayaan oo dhan muxiiط buu ku yahy waa ku koobay idan masaladan waxay culammadu idhaahdaan muraaqaba ama waxay idhaahdaan waa dawaamu cilmi اlcabd waa addoonkoo aqoontiisa in rabbi arkaya ay joogto noqoto oo yaqiinsada in meel kasta uu joogo daahirkiisa iyo baaطinkiisaba in rabbi og yahay subxaanaه wa tacaala dabeetana cilmigaas ama yaqiintaasi waxay gaadhsiisaa inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ka xishoodo oo muraaqabadiisa dhowro waxay dhaxal siisaa inuu qof quman noqdo noloshiisa dhammaanteed waxay dhaxal siisaa inuu qof quman noqdo waxaad ogtahay haddaad saxaaro joogto iyo haddaad guri hoostii ku jirto iyo haddaad meel isku qariso ilaahay waa ku arkaya sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy yaclamu maa yaliju fi اlardi wamaa yakhruju minha ilaahay waa ogayay waxa dhulka gala iyo waxa ka soo baxaba wamaa yanzilu min الsamaaء wamaa yacruju fiiha wixii cirka ka soo dega
iyo wixii koraba ilaahay waa ogyahay wahuwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo aad joogtaanna rabbi waa maciin wallahu bima tacmaluuna basiir waxaan samaynaysaanna ilaahay subxaanaه wa tacaala waa arkaya idan waxaa ilaahay nebigiisii moxameda calayhi الsalaaةu wasalaam u tilmaamaya markuu khayrka samaynayey in ilaahay arkayo watawakal calى اlcaziizi الraxiim baa ilaah yidhi waxaad tala saarataa ilaaha gaalibkee xooga badan raxiimkee naxariis badan aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi saajidiin allaha ku arkaya marka aada istaagto salaad isu taagtid iyo wataqalubaka fi saajidiin kuwa sujuudsan marka aad dhex socota allaha ku arkaya inahu huwa الsamiicu اlcaliim baa ilaahay leeyay inahu huwa الsamiicu اlcaliim ilaahay waa ku maqlaya oo arkaya mansiladan qofka muslimkii markuu soo gaadho wuxuu soo gaadhaa xad uu xishoodo waxay dhahdaan mansiladii hore waa xad uu qofku ka boqo ilaahay awooddiisa almansila lula aynu ka warranay waxa weeyaan ilaahay baa ku arkaya waad ka cabsanaysaa ilaahay inaanu ku cadaabin baad ka cabsanaysaa mansilada tani cabsidaa way soo dhaafto waad xishoonaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu ka xishoonaya dee ilaahayna waa kuu dhowye mar kastaba ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwaة daaci wa qariib min almuxsiniin ilahay wuxuu leeyahy hadday addoommahaagu ay kaa weydiiyaan addoommahaygu hadday kaa weydiiyaan waxaad ku u sheegtaa fainii qariibun waan dhowahay baa ilaahay yidhi anaa dhow oo ajiibayo maqlaya kay baryaya baryadiisa waxaa rabbiina leeyahy ma yakunu min najwى ثalaaثaة ilaa huwa raabicuhum walaa khamsaة ilaa huwa saadisuhum walaa adnى min dalika walaa أkثara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu saddex ma faqdo ilaa ilaahay baa ku afaro waa ogyahay rabbi waxay ku faqayaan afar ma faqdo hadday faqaan se ilaahay baa ku shana ama shani ma faqdo ilaahay baa ku lixaa cid kasta in ka badan iyo in ka yari toona ma faqdaba ilaahay le ilaa iyo dadka macoodu yihi idan qofka yaqiinsada inuu ilaahay mar walba taalacanayo yaqiinsada rabbigii inuu ka xishoodo yaqiinsada in ilaahay leeya wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid xablulwariidku waa kan baan uga dhownahay baa ilaahay leeyahy qofka sidaa yaqiinsada nabigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay maala markaynu salaada tukanayno sida laynoo leeyay qalbigiina xaadiriya xadiis sheekheynku ay warinayaan bukhaari iyo muslimba ku yaala ina axadakum idaa qaama yusalli fainamaa yunaaji rabbah war midkiin hadduu istaago uu rabo inuu tukado waar ha ogsoonaada ilaahay buu la hadlayaaye bal ee ilaahay baa kuu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin markaad tidhahdaan rabbi leeyay xamidanii cabdi addoonkaygii baa imahadiyey الرaحmaan الرaحيim markaad tidhaahdo ayaa rabbi kuu jawaabaya maaliki yowm الdiin markaad tidhahdaan rabbi kuu jawaabaya iyaaka nacbud وiyaaka nastaciin markaad tidhahdaan rabbi kuu jawaabaya idan mar kasta oo aad ilaahay baa le addoonkaygii baa imahadiyey addoonkaygii baa i ammaanay addoonkaygii baa i weyneeyey addoonkaygii waxa uu la yimi waa wixii noo dhexeeyey aniga iyo addoonkayga iweydiiso waxaad doonto markaasaad bilaabaysaa ihdina الsiraaط الmustaqiim waxaad ilahay weydiisanaysa waa kan sidaa awgeed riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihin fainamaa rabuhu baynahu wa bayna اlqibla rabbiga adiga iyo qibladu idin dhexeeya yacni waa kuu dhow yahay waa kanuu nebigu tilmaamayo inuu ilaahay yihi subxaanaه wa tacaala ana cinda dani cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga malaysta u baanahay malahaad adigu rabbigaa ka malaysanaysaa intuu leegi halkaasaan kuu joogaa baa ilaahay leeyahy haddaad i xusto waan ku xusi naftaada haddaad iga xusto anaa tayda kaa xusi haddaad dad dhexdii iga xustana mala ka khayr badan baan kaa xusi haddaad taaka ii soo dhowaato baa ilaahay leeyahay waxaan kuu soo dhowaanayaa dhudhun haddaad dhudhun ii soo dhowaatana baac joog baan kuu soo dhowaan
haddaad socod iigu timaadana aan ordayaan kuu iman baa rabbi leeyahy yacni waxaa rabbi tilmaamaya mar kasta inta aynu inagu alle u jirsanno in ka dhow inuu rabbi subxaanaه wa tacaala kuga abaalmarinayo sidaa awgeed mas'alada tan waxaynu nusuustan u akrinay waxa weeyaan inuu qofka mu'minka ahi dareemo markuu cibaadaysanayo inuu rabbigii la hadlayo dareemo nolosha meel kastoo uu marayo in rabbigii طaalacanayo martabada saddexaad ee ixsaanku waxay culimmadu yidhaha waa martabaة الأنس بالله الاطمئنان إليه والفرح بعبوديته waa heer uu qofku ilaahay weheshado ka soo gudub cabsidii ka soo gudub xishoodkii wuxuu joogaa xad uu rabbigii weheshado weheshigu waa maxay waa ilaahay agtiisa buu muطma'in ku noqonaya markuu rabbigii la munaajoonayo ama uu la xidhiidhayo markaas buu yahay marka uu ugu degan yahay marka aanad mansiladan gaadhin cibaadadu culays bay kugu tahay innagu waxaan idhaha war salaadda inaga saara inaga rida waa meel aad ka sii cararayso ama qofku marka uu marxadadan gaadho ilaahay subxaanaه wa tacaala munaajaadkiisa dhadhan u samaynaya waa sababta ay dadka ilaahay ku xidhan habeenkii u kacaan habeen oo dhan u taagan yihin hurdada wuxuu ka jecel yahay inuu rabbigii munaajaata la sameeyo noloshiisu waxay noqonaysaa mid rabbigii ku xidhan wuxuu ahaanayaa mid wardiga iyo dikriga iyo cibaadada ka hela iطmi'naanka dadku markaanay martabadan joogin sheekada iyo warkay ka helaan hadduu in yar qur-aan akriyo waaba cidhiidhi nusa saac hadduu masaajidka fadhiyana wuxuu odhaya maantoo dhan masaajidkaa iska fadhiyey nusa saac buu ku jiray laakiin nusa saacaasi wuu badan yahi laakiin maantoo dhan hadduu maqaaxida fadhiyo in waxba ka lumeen ma rumaysna hadduu 3 saacadood tv-ga daawado in waxba ka lumeen ma rumaysna waayo yansharix maca dalik waxaanu baranin weli inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala agtiisa ku xasilo waxaanu baranin weli alunsu maca allaah ilaahay inuu weheshado la hadalkiisa iyo cibaadadiisa iyo dikrigiisa iyo weynayntiisa waxay naftiisu weli mustariix ku tahay sheekada bini aadamka warka la dalday war aanad waxba ka faa'iideyn mid aakhiriya mid adduunta hore kuu sheegaynin ayaa maanta oo dhan la wadaya ama shaqa aan waxba ka soo baxaynin idan marxalada tani waxay yidhaahdaan moxamed ibnu nadr alxaariثi ayaa wuxuu markuu dadka u yimaado cidhiidhi dareemi jiray bay yidhaahdeen markaasaa abu usama nin la yidhahda wuxuu ku yidhi kaannaka takrah an tu'ta waxaad moodaa inaad necbaysanaysaba in laguu yimaado haa buu yidhi amaa tastawxish buu markaa weydiiyey oo marka aad cidlada joogto miyaad cidlo dareemin markaad cidlada joogto miyaad cidlo dareemin buu yidhi sidaan cidlo u dareemaa buu yidhi anigoo rabbigay xusaya malik ibnu muqafal nin la yidhaahdo isna wuxuu leeyahay gurigiisu keligii fadhiisan jiro markaasay yidhahdaan miyaad waxsha dareemaynin kelinimo oo ma kelinimuu dareemaa buu yihi qof ilaahay la hadlaya qof rabbigii la munaajoonaya miyaa kelinimo dareema rag badan bay ka soo ururiyeen kelimaad caynkaasa xataa fudayl ibnu lciyaad ba waxaa laga sheegay inuu dhahaa طuuba liman istawxasha min الnaas wa kaana allahu jaliisa waxa fiican buu leeyahy ama waxa wanaag helay ninka dadka istayxaashka ka qaada dadka la joogiisa aan macaansanin ee ilaahay subxaanaه wa tacaala la joogiisa macaansada laakiin culamadu waxay dhaha martabadan waxaa ka sarraysa martabadii ambiyaadka oo ah isagoo khalqiguna waxay xaq u lahaayeen siinaya ayuu haddana rabbigii ku xidhnaa isagoo dadka dhex jooga nabiy llaahi moxamed alayه الsalaaةu wasalaam isagoo kula dii xaqin xaqiisa siinaya oo dadka la jooga oo la yidhaahdo magaalada addoontu gacanta ka qabsataayo muu ka tegi jiray in lalayo danteeda u dhammeeyo oo carruurta salaamayo oo cid walba la jooga ayuu haddana ahaa maxay mid aanu go-in xidhiidhka uu rabbigii la leeyahay saa daraaddeed baa xadiidka tirmidi abu daawud bay warinayaan cabdillahi bni cumar wuxuu leeyahay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fadhiga uu nala fadhiisto mararka qaarkood 100 jeer baanu ka tirin jirnay isagoo leh rabbi اkfir lii watub calaya inaka anta الtawaab الraxiim ilaahw dembigayga dhaaf
oo toobadda iga aqbal adigaa ah التواب الرحيم إسلام مركا حديث كلا صحيح مسلم كوا كلا إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة إلهي سبحانه وتعالى بقول معناه دوا محي isagoo nabigu dadka la fadhiyo dadka la jooga ayuu wali isagu Ilaahay xusi jiray halka ay dadka culimada aynu ka soo naqlinay ay rabeen inay gaar u baxaan oo maxay Soomaalidu maxay dhahdaan ninkaas waa iska buura gal ama waa zaahid ama waa dadku ka go'ay nacam dadka dambigooda markuu u taag waayo iskaga go'ay laakiin ka waxa ka sii fiican ka dadkana la jooga wixiina qabanaya laakiin aan dadka ku milmaynin isagoo dadka la jooga wardinaya isagoo dadka la jooga Ilaahay ku xidhan isagoo dadka la jooga aan aqbalayn inuu xumo dhageysto isagoo dadka la jooga wanaag u sameynaya kaasa ka sii sareeya marka uu nabigu gaarkiisa u baxana de Ilaahay buu ku xidhmi jiray مثلا صلاة عادية مركو تكنيو وحو إلى لنجري دتك حاجة قبا يعني جماعة مسلمين تا حيمان يقف وين حيمان يقف ضعيفة حيمان يقف بكا حيمان يقف دان لو دق دقية إن لغو دالية مركا ما فرط كعادية هذا دي ودا دلنيرو ودا حوقنتينو يدون كغارس وقو بحدين taas waa inta doontaan ba ka dhigan kartaa laakiin masaajidda caamka ee dadka tirada badan la joogaan dadka in xoog loo daaliyo ma laakiin nabigu muxuu sameyn jiray markuu isagu tiisa gaarka u baxo ayuu salaad dheer tukan jiray inaga waa cagsiga waxa laga yaabaa faralka in la yara dheereeyo laakiin sunnah in faatixadu una ku tukato ama bi rabbina iska ugu dheereeya oo akhriyo waa cagsiga waxay ahayd tanbaad xor tahay sunnada cidina adiga naftaada aamiru adiga xor saadaradeed ibn mas'uud baa wuxuu leeyahay xadiis saxiixan ku yaala nabiga calayhi salaatu wasalaam oo habeen tukanaya ayaan sidii buu yidhi war nabiga iskaga xidho dabeetana waa taagnidiiba uu ka bixi waayey buu yidhi xataa hamamtu biamri suu'in buu leeyahay ibn mas'uud ilaa aan ku hamiyey arrin xun markaasay dhahaan waa maxay arrinka xun aad ku hamiday waxaan ku hamiyey buu yidhi nebigoo taagan inaan iska fadhiistaan ugu waa arrin xun buu tilmaamaya inaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo taagan anigu fadhiisto idan nebigu dhadhan bay u samaynaysay markuu kelidiisa noqdo xudayfa ibnulyamaan baa wuxuu leeyahay nebigaan ku xidhay calayhi salaatu wasalaam habeen isagoo tukanaya dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi dee malaa ilaa 100 aayadood waa jis dhadhow jisku waa 120 140 meelaha waxaan sidhi buu yidhi ilaa 100 aayadood markuu akhriyo wuu rukuuci doonaa markaasuu ka socday buu yidhi boqolkii markuu akhrinaya buu socday wuu waday waxaan sidhi buu yidhi malaa un dee suuradda markuu dhammeeyo haddaba suurat albaqara waa imisa 286 aayadood waa 2 jis iyo dheeraad waana ragcad wali waxa loo taagan yahay waxaan sidii buu yidhi malaa markuu dhammeeyo albaqru rukuuci doonaa dabeetana suuratu nisaa buu bilaabay buu yidhi markaasuu haddana nisaa dhameeyey dib buu usoo noqdo haddana suuratu ali cimraan buu bilaabay buu yidhi markaasuu haddana ali cimraan dhameeyey waa 3 suuradood waa 5 jis meelaha ayuu ragcaddii koowaad ku akhrinayaa waxa kaaga daran siduu akhrinayay mayuu dudubinayay maya rabbigii buu la munaajoonaya la hadlaya wuxuu leeyahay mutrasil buu ahaa si degan buu akhrinayay weliba buu leeyahay hadduu soo maro aayad tasbiix ka warramaysa wuu tasbiixsanayay hadduu aayad baryada ilaahay soo maro waa ilaahay buu baryayey hadduu aayad yacni qur-aankuwan uu akhrinayo wuxuu sheegayo la dhaqmayay intaa maxaa dheer wuu rukuucay buu yidhi intii uu taagnaa in leeg buu haddana rukuucsanaaday buu leeyahay yacni in 5 jis laga akhriyo ku dhodhow ayuu haddana rukuuc waday wuu soo toosay buu leeyahay intii in leeg buu haddana taagnaayo ilaahay baryayay wuu sujuuday intii la yacni wuxuu tilmaamayaa qiyaamkiisa iyo sujuuddiisa iyo rukuucdiisa iyo wuxuuba inay isku dhadhawaayeen qiyaam qura muu dheeraynayn ee dhammaantood buu dheeraynayay maxaan uga dan leenay arrimaan waxaan uga dan leenoo tilmaamaynaa ilaahay buu weheshanayay cibaadadaa dhadhan u samaynaysay ilaahay inuu ka fogaadaa baanu doonaynin inuu rabbigii la hadlaa buu macaansanayay qofku ladadatan macaankan markuu dhadhamiyo
وكجدسين ياهي قفك كله ولذلك بس يدو تاجنا نبي عجها براري مركزي عايشة واحد الإلهي رسول كيسيو ما حد سيدنا وياليسه إلهي باب الدم بقى هرية الدم بقى جدا ما بعد قد عفه دم ببلغوا ما قرينه ما أدنى ست دوم حتى يسوع عذاب يسوي صمينسه النبي عليه الصلاة والسلام حكوا لي أميانا نقونين أفلا أكون عبدا شكورا قف ما هذا النقه إلهي سبحانه وتعالى ونما هذا نقيا وتلمامي أيها الأحبة وحين لا نمركه إحسان العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقامات كصدح دابي علماء كتلماما مقام الخوف والمشاهدة هي مقام الحياء والمراقبة هي مقام الأنس مع الله هنا دادقو إلهي كعب صنع يا وحا سميسو ورميسانين وكو أركيو يينا إلهي كحشون وسواد درين سنتين وكو طالعان أيو ميلك استواد شو اكتبها يينا إلهي وهشاني سبا وإن أدسجوا لا جوكتاد مع سنسو ولذلك بعض علماء المسلمين تقار كم إذا وحلقت لقى الشيء إن يقولون شرين جنة الدون كنين كان كل دميني جنة آخرة كاسر دمين قرن مايو جنة الشيء يوم حويان إلهي كحرين كيس إن عبادة الردم كوسا مايسو إن إلهي وين دي سدرنتو إن إلهي وحن معكو سياد درنتو إن إلهي مهدنقي سباديسيت إن ربك سبحانه وتعالى وهشتت كاسي وإحسان كقيب كمدا إلينا وحين إليه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إحسان كاسي السماية والسمفلة وعبادتي إنك السمفلة إلهي سبحانه وتعالى وحج عليها قوة السمفلة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لمع المحسنين إلهي آيات بدن القرآن كتل مامية dadka إحسانka sameeya ajirkooda inaan ilaahay luminin ilaahay inta muxsinka samaha samaysa inuu macooda yahay ayuha alxibba haddaynu rabno ilaahay inuu kuu hiiliyo inuu kuu gargaaro inuu nolosha kuu fudaydiyo waxaynu u baahanay cibaadadeennu inay dhadhan samayso cibaadadeennu inay dhadhan samayso hadduu qofku noocaan noqdo أعماشيسا أنت صاحب أنا وحين نقول نسميه كل إحسان سمينيه ويوحد أجي إنه ربي طالع عنيه إذن في كل أحواله يتعامل مع الله قفر وح كستو قبنا يكيج ما يحق دتك كسهر شيء ده وحو كيج يا ما هي حق الرب سبحانه وتعالى هدو وح صدقة ضيسنا يه إلهي بيقول وانا يا وح في عمو صدقين يا إيج ما يقف نصينا يا كويه هدو هضلا يه وحوان أكسب بشيء وقولوا للناس حسنا بايلاي دتك السما كلها وايو إلهي بمراقبة سوقه إن ربي داوانا يو إلهي بكحشانين ربي وكم قالوا حفكي سكوحن تاسي واحد كان سنسة هذا الإحسان في العبادة دعوه أوتوماتيكالي وحكرنا لنا إياه معاملات كاقول من إحسان كسوقلات قفك مؤمن كان معاملات كيس وحي قادا حديثك صحيحة هاي مسلم صوصر الشداد بن أوس إنه النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الشيء غيبا إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلهي وحولب إن إحسان لو قبطه سفي عن لو قبطه أي ربي فرق ضدك وحتى أبا ربي لي هدا وحدي ليسان سفي عنه دلع قف دل لو حكومي ومحكمة دل يسو إن تمثيل لو سمايا ما بنانا إلا جوجويا أما الله تورشر قريا أما الله عقابا ما كان ما بنانا حتى هداد وحق ورعي سان بالي دقاقة نافارية وحبات غليسة فاحسنوا الذبح بايلهيري قورع وناتشيا وحنبي عليه الصلاة والسلام مديدا هذا يسوق ناف وكو أركا إن صوص صوفيس راويس كو قورعين مدا كركر يسوون وحبات شراينين هكو قورعين مدي أفبضا هكو قورع ونبي عليه فليرح ذبيحته هو الراحي ناف كانوا قورعيه إذا قفك مؤمن كي وحكستو وقبنيه إلهي بكون بنينا الحوالة غلطه لكنها سلعنين سيدا وفضوا ده نفط وقبح كرته وقورع بالينا فريا هدي أي مركز دبوده إنه إحسانك عبادة الصمين إنه واحد دبوبيا
إحسaankii layna faray oo dhan ee kale inuu dhab noqdo oo maxaa ka mid ah in waalidkii loo samafalo الdaa'ira lula kuugu dhow waa waalidka in loo samafalo adigoo ilaahay ka cabsanaya subxaanaه wa tacaala daa'irada labaad ku xiga dawi اlqurba qur-aanku wuxuu tilmaamayaa qaraabada in loo samafalo daa'irada taa ku xigta kasii agdhadhow mujtamaca intiisa daciifka ah alyataama wاlmasaakiin iyo wاlfuqaraa iyo wixii la mid ah in loo samafalo daa'irada kaa kasii durugsan muslimka cumuuman in loo samafalo daa'irada taa ka durugsan mukhaalifka qofka ah xataa kuwaan kula diin ahayn in loo samafalo haddaanu muxaarib ahayn duu dagaal kugula jiro mowdic iljihaadda jooga waa gaar laakiin markaa nabad tahay kuwanaa la degantihiin oo kale markay tahay in loo samafalaa baa diintu ina faraysa bale in dadkooda ducafadaa wax la siin karo oo loo samafali karo ducafada aynu sheegaynaa waa maxay cid kasta oo baahan gaalka zakaan la siin karin zakada lama siiyo laakiin sadaqada caamkaa waa la siin karaa hadduu baahan yahay hadduu daciif yahay hadduu jaarkaa yahay hadduu qaraabadaa yahay waa la siin karaa sidaa awgeed daa'iradaasaa loo samafalaya markay basharka dhaafto waxaa la yidhi waxaad u samafalaysaa maxay xayawaankii oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qof dumar ah ayaa naarta ku gashay bisad mukulaal bisad mukulaal bay qof dumari naar ku gashay dabeetana nebigu wuxuu yidhi way xidhay oo waxay cuntana may siinin manay sii daynin dhulkeeda deh u arsaaq tagtee markaa bisad bay toorjar garaysay halkaa bisa ay xidhay kuwa dadka qadinaya maxaad u malaysa inta meesha ku xidhaa nafta isugu keenaya haddii bisaas la isku cadaabayo cagsigeeda wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam nin riwaayaadka qaarkoodna gabadh ba kusoo arortay zaaniyada ama xun ayaa iyadoo haraadan kusoo baxday ceel biyood dabeetana way ku dhaadhacday way ka soo cabtay markay soo baxday ay waxay dabadda ugu timi ey ciidda cunayo haraad daraaddeed haraadan waasay tihi kan wixii ahayo kala haya dabeetana dib ba ugu noqoto khufkeedii muuqu waa baaladan khufka ee cagta la geliyo mid ka mid ay intay biyihii dartay afka ku soo qaado dabeetana waxay soo kortay meeshii way ka soo baxday way waraabisay nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay baa uga mahadnaqay ficilkeeda ay samaysay oo dembigeedii dhaafay lacallaha qad taabat laakiin xadiisku sidaasuu tilmaamaya maxaan uga dan leenahay qofku ixsaanku markiisa koowaad si kastoo aad u ixsaan fasho shareecadu way ku dhawaaqday qur-aanka ku soo arooray waalid ixsaanfalkii jaar ixsaanfalkii qaraabo ixsaanfalkeed qur-aan badan baa kusoo aroray nusuus badan oo axaadiisa kusoo aroray in badan baa culammadu idinka warantaa laakiin waxaasoo dhami waxaynu leenahay waxay ka ratibmaan oo sida ugu fiican loo sameeya markuu qofku rabbigii ku xidhan yahay ee acmaashan uu qabanayo uu ka dhex arkaya rabbigii cidduu la macaamulaya ay tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala hadduu khalqiga u samafalayo xishood uu ilaahay ka xishoonayo cabsi uu cadaabkiisa ka baqayo aragti ilaahay uu mahad celinayo nicmada uu siiyey inuu uga abaal mariyo waxaasoo dhan ilaahay dartii buu u wadaa sidaa awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa wax waloo camalo aynu samayno towxiidkaa lagu ixsaan sameeya oo si fiican ilaahay loo qiraa nebigiisana si fiican loo raacaa loo weyneeya salaadaa lagu ixsaan sameeyaa oo si qurux badan le loo tukadaa oo ilaahay lagu xidhmaa soonkaa lagu ixsaan sameeyaa oo waatii lagu yidhaha dagaalamin kana samaynin waa lagu ixsaan sameeyaa maxaa la yidhaha xajkaa lagu ixsaan sameeyaa oo qofka xaja falam yarfud walam yafsuq buu nebigu leeyahy aana afxumo iyo faasiqnimo midna ka soo bixinin xajkaa wuxuu ka soo noqdaa baa la yidhi ka yowmi waladatu ummu sidii maantii hooyadii dhashay isagoo dembi mulukkaa waxaasoo acmaali waxay sheegayaan inaynu ku samafallo waxa aynu samaynayno o dhan waxaan u malaynayaa waktigii salaadda waa gaadhi sida awgeed waxaynu leenahay qur-aanku alfaaddaa tirada badan leh ku soo aroortay ee ixsaanka ka warramaysa dhammaantood waxa ay sheegayaan qofka muslimka ahi inuu samafalo
cid walba u samafalo shaqaalaha kuu shaqaynaya ha noqoto yani nebigu wuxuu tilmaamaya qofka shaqaalaha war dhididkiisu intaanu ingegin wixiisa siiya buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam ha meermeerinin ka weecweecinin hore wixiisa u sii qofka mu'minka ahi xaaraanta ka dhowrsigeeda ayuu ku samafalaya dawaataynu nidhi wuxuu ka xishoonayaa waxaan ilaahay subxaanaه wa tacaala raalli ka ahayn inuu sameeyaabuu ka xishoonaya sidaa ogeed ayuu wuxuu isku dayayaa wax walba ilaahay baa dayna le wadaruu ظaahira اlإثmi وbaطinah in aladiina yagsibuuna اlإثma sayujزawna bima kanuu yaqtarifuun waxaan kusoo koobaya markaa cabsida ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay uu arkayo waxa kale oo dhami way hagaagaan waxay culamada taariikh wariyaan cumar bin اlkhadaab waktigii uu amiiru اlmu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka oo wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhiboo jira kormeer habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya islaantaa waxay tidhi nacaanihii biyaa ma ku dartay nacaanihii suuqa aroorta la geynayey ayay islaantu rabtaa in la badxo biyo lagu daro markaase inantay waxay tidhi hooye cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro islaantii baa waxay tidhi ina amiiru اlmuuminiina laa yaraaka laan laa yaraaki اlآan amiiru اlmuuminiinku dee hadda ku arki maayee tire shaqada inoo qabo amiiru اlmuuminiinku hadda ina arki maayee shaqada qabo bay tidhi inantii baa waxay tidhi إida kaana amiiru اlmuuminiina laa yaraana faina rabu amiiru اlmu'miniina yaraana haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiirulmu'miniinka rabbigii baa ina arkaya bay tihi ilaahay baa ina arkaya sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiirulmu'miniinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan ateeco markaan keli u baxana inaan caasiya suurtagal maaha marka dadku ay arkayaanna inaan ilaahay ka cabsado aanan caanaa badxin marka aan gaar u baxana inaan wax badxaa suurtagal maaha waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisii buu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay war reerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inantaa miyaa la qabaa may inamadiisii buu isugu yeadhay dabeetana wuxuu yihi waryaadheh anigu nin weynoo da-aano hadda dumar warkood ma hadal hayo laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inan ilaahay ka cabsanaysee warardoo taa guursada inimadiisii mid ka mida baa guursaday waxay idhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay idhahdaan cumar bin cabdilcaziiz amiiru lmu'miniinkii cadaaladda badnaa ee iyaga ka dambeeyey waa tafiirtii gabadhaa yar baa la idhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayey cumar ibn khadaab waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisu ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kaloo dhan ka reebto iyadaa keensanaysa hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo waxay idhahdaan markii wakhtiyadii hore nin baa ayaa qola saxaaba yidhahdaa ninka hebel habeenkiina salaaduu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa nebigoo maqlaya calayh isalaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi salaaddiisaa ka reebi doonta yacni war kale uma baahna hadduu nin habeenkii intuu istaagan yahay oo rabbigii ku xidhma dabeecada noocaasiya inuu rabbigii ku xidhan yahay iyadaa samayn doonta buu nebigu leeyay inay noloshiisa kantaroosho oo gacantiisa kantaroosho u qof dhowr soo noqdo daba ayuha alxiba waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan ilaahay ku xidhma ku xidhnaantaynu ilaahay ku xidhanayna xidhnaan dhadhan samaynaysa aan ku xidhnaano
inay cibaadadaynu samaynayna noqoto cibaado macno samaynaysa cibaado aad dareemayso rabu الsamaawaati wاlard biyadihi اlmulk wahuwa calى kuli shayin qadiir inaad ku xidhanto la hadlayso maanta hadday wax yara ku qabsadaan dadku waxaa laga yaabaa inuu cararo markiiba ka fekero waartalow yaa igu dhowaanu tagaa saaxiib qaraabo tol ya waxaba albaab ka dhow baa jira haddaad barato albaab haniya oo wax waliba agtiisa yaalinoo ka dhow baa jira waa intaad habeenkii istaagta inaad rabbiga baridid oo tukatid albaabka ilaahay baa ka basharka ka dhow laakiin maadaama maadiyaadku inugu tiro bateen akhiiran waxaynu noqonnay dad asbaabtuun ictimaado unoo sababtu ay u muuqato laakiin rabu الsamaawaati walardi musabibu lasbaabka baanu inoo muuqanin sababtaba ilaaha fudaydiya idan haddaynu rabno noloshan adduun inay fududaato dadka marka la yidhahdo cibaadaysto caynkan waxay ka fekeraan uno is idhaahdaan dee aakhira loo jeedaa inay ku anfacdo war aakhira uma jeedno tan bay ku anfacaysaa tan aynu joogno aynu rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheenna inay nolosheennan adduunyo shaqadeennu aqoonteennu cilmigeennu caafimaadkeennu tacliinteennu dadnimadeennu inay hagaagtaynu rabnaa waxaynu leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeennu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado markaynu gaadhno xad ducadeenna rabbi aqbalo markaynu gaadhno xad waxaynu doonayno inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno oo alunsu maca allaahi gaadhno inaynu ilaahay u heshanno oo markaad qur-aanka akrinayso uu dhadhan kuu sameeyo kuu macaanaado oo markaad salaad tukanayso uu kuu macaanaato oo markaad wardinayso ay kuu macaanaato oo cibaadaadku dhadhan kuu sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadhaado xumuhu iyo xanta iyo warka torrogta iyo beenta iyo waxaan adduun iyo aakhira toona wax ka tarin dadku inta badan wuxuu wadaa kuwa psychologiga waxay idhahdaan marar badan baan bini aadamku caqligiisa isticmaalin bay idhaahdaan ee bulshada iyo dadka iyo waxaan u arkay iyo waxa uu iskaga dhaqmaa waayo hadduu caqliga isticmaali lahaa bay leeyihin wax badan muu sameeyeen inaan dadku caqliga isticmaalin miyaa u baahantihin proof soo dadku sigaarka ma cabo muxuu taraa cid tidhi sigaar baa wax tartamaya maqasheen mid caalima mid culamaa mid saynisyahana mid cid tidhi sigaar baa faa'iida le ma maqasheen maya waxyeelle ma leeyihi dee kuwa soo sameeyaa dusha kaga qoray sigaarka dushiisa maxaa ku qoran war waa khatare ha isku cabbin waxaa laga qaadaa kansar iyo waxaase waa khatare ha cabbin baa ku dul qoran dushiisa ku qorantay ka warra adigoo arkaya haddii lagu idhaha caagada tani war waa suna ha isku cabbin aad tidhaha may iska yaro qurqurinaya caqligu miyuu jiraa mise ma jiro yani caqliga lama isticmaalin idan bini aadamkan aad arkaysaa marar badan buu isagoo caqligiisa qaba uu diidaa inuu isticmaalo oo naftiisa iyo shahwaatu nafsiya waxay iska doondoonayso kale uu isticmaalaya matala khamri aadanahoo dham wuxuu rumaysayay one of the poisonous waxyaabaa ugu boysinsan dunida inuu ka mid yahay alcoholku waa poison waxba ma taro haddana waddanada aleedin horay u mareen waxay idhahdeen laba habeen dadku way fasaxayeen inay waashaan shan cashana waa la shaqeeyaa labana waa la waalaadaa waddanka in yaroo ilaalisaa looga tagaa oo la yidhaahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraan intaasaa waddanka o dhan ilaalinaysaa waddanka intiisa kale maxay labada habeen u fasaxiyeen inay waashaan ka warran dad dhan oo isku waafaqay ummadda intay ugu badanay laba habeen ha waalato in yarina hama yar qabto waddanka ha ilaaliso yani ma caqligaa la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay war diintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan caqligiinaa ifi doona caqligiinaa noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah qur-aanka iyo diintana akhriyaysaa baa dhadhan idiin samayn doonta marka waxaad macaansan doontaa oo dhadhan kuu samaynaysa ilaahay ariiqiisan inaad hayso aakhirana kulama sugaysee inaad dunida tan ilaahay uu abwaabteeda kuugu furo qanaaco kugu siiyo waxaad heshaad ku qanacdo noloshana ay kuu macaanaato samaysmayaan idan waxaan leenahay alixsaan fi lcibaada ixsaanka kale laga warramo oo dhan isagaa fura u ah waalid ha loo samafalo jaar ha loo samafalo asagoon ha loo samafalo masaakiina waxaasoo dhan waxa fura u ah kani hadduu hagaago
hadduu hagaago xidhiidhkaynu ilaahay la leenay subxaanaه wa tacaala oo nebigu markii la weydiiyey uu ku tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak salى اllahuma calى nabiyina mxamedi wعalى alih وصaxbi وsلم والحمد لله رب العالمين إلهي جدك قمنا هين وهنوني السلام عليكم